halkani waa Afgoye Media Show. fadlan intaan muuqaalka u gudagalin subscribe dhaho kambaleelkana furo si aad macluumaadka aan soo gelino channelka Afgoye Media Show aad u rukumato oo kugu soo dhaco mar walba oo aan muuqaal soo gelin. aad ayaad ugu mahadsantahay daawashadaada. daawadayaal ku soo dhawaada Carwo Father Care oo ku yaal degmada Afgoye. caawa waxa idin haynaa muuqaal ka hadli doono carwadan iyo waxyaabaha ay qabato. carwadan waxa lagu soo kordhiyay degmada Afgoye maadaama oo dhalinyaradeedii ay sportiska aad u qiimeyso qalabka sportiska oo dhameystiran sida idin muuqato kabii sportiska waa kana dharkii waa inuu dhiman yahay waxa kale oo meesha ka maqneen labiskii dhalinyarada oo marka dhalinyarada hadda soo bixisay aad u xiiseynayso oo kala nooc ah. halka aan ku sugannahay waa hool waa carwo waa meel dhameystiran waad arkaysaan baaxadeeda inta ay leeg tahay haddii aad u aadi jirtay magaalada Muqdisho ama meel kale aad wax u doola jirtay maanta waxa lagu keenay degmada Afgoye carwo ka xaqabtiri doonto waxyaabihii aad u aadi jirtay meelaha fogfog iyo meelo kale inta waxaan ku leenahay gacmo furan ku soo dhawow anagoo team Afgoye Media Show ayaa soo booqanay idinkan waxaan idinka filaynaa sida isin lamid ah inaad u soo booqan doontaan carwada Father Care ee degmada Afgoye. carwadani waxay ku taalaa wadada gasho suuqa Hilwaaley agagaarka heer Buulalow. aad ugu mahadsantiin weli waxaan ku dhex jiraa carwadii xayeysinteedii ama markaa soo bandhigisteedii sidaad arkaysiin hadda waxa idin muuqdo kawihii ragga oo dhowr ceen ah haddii kuwii gadaal loo xiranay ama kuwii hore loo gashanay ay noqon lahayd waxa kale oo inoo xigo kabihii dhalinyarada wili iyo noocyo kala duwan ah dhankan waa sportiskii fanaanada kala ceen ah maaliyadaha aniga sida hadda waxa waa sportiska ugu dheereeyo u kala macnay karo sigsaamakii oo original sidaad arkaysaan kuwani waa sportiskii oo kala ceen jaakadihiisi dhanka waa sidii oo kale waxa idin muuqdo fanaanadii sportiska buumooyinkoodii hadda tan ugu gudubno dhankan kale inta waa kan waa waa kan wili fanaanadii ayaa noo socdo oo kala ceen ah waa ujeedaan fashion oo la soo harkay oo marka si aad u qurux badan loo soo hardhay midabka doontid ama gaduud ama casaan ama madow ama cadaan dhankan kale inta waa saraawiishii kala ceenka ahayd inta waxaan ka maqneen boorsooyinkii haddii aad doonayso safar oo marka mini ah haddii aad aadaysid mini waxaan ka wadaa safarada gaaban boorsooyinka loogu talagalay haddaba waa handbag alaabihii dusha lagu xirnayo ee dhalinyarada marka ay aad u jeclaayeen. carwadani waa Father Care waxay ku taalaa degmada Afgoye gaar ahaan wadada gasho suuqa Hilwaaley. waxa gacmo furan kugu soo dhaweyn doono shaqaale loo arbiyay sidii marka ay dadka u maamuusi lahaayeen waxaan hadda aan laba kalmadood ka weydiin doonaa maamulka carwada oo marka inoo sharixi doono waxyaabaha oo marka hamigiisa ama sida ugu soo kordhiyay degmada Afgoye iyo baahida loo qabay labiskan kala ceenka ee dhalinyarada degmada Afgoye. haddana isaga ayaan wareysi ka qaadan doonaa insha Allah nala socdo. okay haddana waxaan ku soo dhaweynaynaa kaamirada maamulka carwo Father Care oo marka hamigiisa uu yahay in sidan isi ka daran oo marka uu hore ugu sii socdo ama wax badan uu kaga bedelo degmada Afgoye dhalinyarada ku nool siday marka labiskooda dhowr ceen isagoo marka ugu soo kordhin lahayd. haddana isaga ku soo dhaweynayna mikrofoonka ku soo dhawow channelka Afgoye Media Show. waa ku dhawahay aad u mahadsantihiin booqashadan ugu timaadeen maasha Allah horta carwada waa sida hadda hor loo sheegay waaye Father Care ku magac dheer tahay waxaan ku taalaa degmada Afgoye gaar ahaan wadada dheer ee Hilwaaley ekis xaruntii hore ee Micraaj marka ku soo dhawaada macaamiisheena sharafta leh. carwada waxay khaas aan u tahay dhalinyarta waxaan keenanaa wax walba ee u baahan yihiin dhalinyarta sida maaliyadaha sportiska seasonka sanadkan lagu ciyaaro oo kale maaliyadaha buufiska ebel waxa loo tagi jiray xabar صح marka hadda waxaan u keenay
maaliyadaha baashi lagu sameynayay istaambadii maaliyada lagu buufiyo iyadoo qiimo macquul ah صح iyo sportisko idil waan keenay aad ugu mahadsantahay maadaama oo aad dhalinyaradii degmada Afgooye baahidoodii markaa aad xaqabtirtay waxa meesha ka maran oo loo baahan yahay dhalinyarada dhanka ragga markii la fiiriyo waxa qabtirtay waxa ku dhiman dhalinyarada dhanka haweenka ilaan iyaga naftirkooda waxa waaye dad markii kamid ah dadka bulshada aad markaa u adeegaysid inaad ku soo dartid waxa laga yaabaa dad badan oo jecel alaabaha jiimka lagu sameeyo waxa laga yaabaa waxyaabo badan markaa dadka ay tabanayaan inaad markaa adigana ka tirtoodid marka ka waran ma ku soo kordhi doontaa dhanka haweenka oo kale dharkooda ha waa rajeena insha Allah haweenkan waa loo keenin doonaa dharkoodii iyo alaabaha sida fadhiyada oo fadhiyada iyaga laba nooc kale moogta fadhiyo oo waxa jiraan oo qolalka fadhiga caadi la dhigto iyo fadhiyo caagag oo lagu qadeeyo oo fashion marka fadhiyadaasina waa keenin doonaa wax alla wixii markaasi oo agab guri loogu baahan yahay iyo wixii oo dumar u baahan insha Allah bidal kareem oo keenin doonaa aad ugu maasantahay booqashadii aan ugu talagalnay Carwo Father Care oo aan caawo u soo baxnay nagulama ka saynin inaan habeen markaa xayeysiin sameeyno ama markaa aan soo bandhigno muuqaalo oo markaa ku saabsan degmada Afgooye caawo waxa inoo bilaabay Carwada Father Care oo aan ku furfurnay barnaamijkan habeenkii inaan markaa ka qabano degmada Afgooye xayeysiinada ugu muhiimsan aad ugu maasantahay halkan naga daawanaysan waa channelka Afgooye Media Show bulshooyinta Soomaaliyeed meel kastoo aad joogtaan waxaan idin leenahay gacmo furan ku soo dhawaada Carwo Father Care ee degmada Afgooye gaar ahaan wadada gasho suuqa Hiliwaale wixii faahfaahin dheeriye kala socda taleefanka shaashada idinka muuqdo waxaan idin leenahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh sanid waqtiga aad nasiisay channelka Afgooye Media Show sida aad u daawatay waad ku mahadsantahay